السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وانيما يقرأ نقض شال 10 ما سوق لنين ما أنتو حان كهالينا أما أن شرحينا إرق اللي يراد conjugué أما conjugation. conjugué وحو كدقين يحي أذيقو لغو هاي شاه كاري وسيدو شاه اسكو آديهم وإنا أكرستا وإنا دبك شدا ديكسيك سوقا وتا بيوك شبتا كدبنا علين تكردا saas baa la yiraahdaa. marka conjugué hadduu qof macalinkaada uu kugu yiraahdo maalin conjugué présent ama present faut conjugué sidee aan ku conjugueyn karayaa haddii aniga aan garanayn waxaan leeyahay muxuu ka wadaa indhaha tagtaagaya laakiin haddaa garanaysa waa soo boodaysa haddii lagu dhaho présent conjugué indicatifkiisa waxaa leedahay je dois tu dois je dois, tu dois, wad awooda, waan awooda. Indicatif, muxuu yahay ereyga indicatif? Indicatif waa sida aan igu soo sharxay indicatif waxaa weeye hagitaanka ama maxaa la meesha u socdo markaas waxay ku hagaagsan yihiin. Marka conjugué waxaa weeye waxaan isku dar sida xisaabta oo kale adiga ku dar ku dhufo ay u leedahay kale ee waxa feebko dhan u leeyihiin conjugué haddii lagu dhahaa présent conjugué passé conjugué simple conjugué waad garanaysaa marka si iskugu soo aadaan hadda annaga waxaan sharaxnay conjugué wuxuu yahay indicatif wuxuu yahay présent wuxuu yahay présent waxaa weeye waqtiga hadda waqti xaalanka aad taagan tahay markaan aad taagan tahay indicatif waxaa weeyane wixii oo hagaysi markaasito conjugué waxaa weeye waxaa isku dareysi ama oo ka shaqeynaysi iskugu dhufanaysi oo ka shaqeynaysi waa ka shaqeynaysaa waa sida aan igu soo kala sheego kala waa qof sheek ku kar inuu ku dhahay aad qaxwo karis wax kala sameysay marka hadii insha Allah fasalka qofka ugu horeeyo noqdo gacanta hore ka taaga carara adoo macalinka igu dhaho conjugué présent conjugué passé conjugué simple waa ina qofka ugu horeeyay aan noqoto insha Allah au présent exemple ani sheeg je dois tu dois marka cashirkeena maanta intaas uu ku egyahay ereygaas ani faa'iideynayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh